waxaan halkan hambalyo aroos ugu dirayaa. waxaan halkan uga hambalyeynayaa caqligii aan lahaa cilmi miyaan lahayn cabdiyow ninku caashaqay miyaan la coloobay saa ku yeelay. salaamullaahi calaykum tacaala waraxmatullaahi wabarakaat. asxaabta meel kastoo joogtaan aad baa idiin salaanay. waa anagoo bahda jilaa channel ah. wax badan baad naga daawateen anagoo idiin wadna muusig, heeso, dhaantooyin iyo majaajule iyo riwaayado wax qosol badan. caawa barnaamijku wuu ka duwan yahay asxaabtay. waxaa barnaamijka caawa martigu ah oo gacanta bidix iga fadhiya saaxiibkii aad iyo aad ugu qaali ah Mustaf Maxamed Dalmar oo ku magacdheer Salwe. asxaabta meel kastoo joogtaan waxaan idiin sheegaynaa caawa barnaamijyadii hore uu ka duwan yahay maadaama uu ila fadhiyo nin saxaafi ama nin wariye ah. caawa talo cawkiyo Mustaf waxay ka hadli doonaan saaxiib cawka cabdi biixi. horta aad baan kaga mahad celinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweysay. aad iyo aad waa caawa waxaan filayaa waxaa meesha sugan keenay arooskaa weyn ee weligii aan Nairobi ka dhicin. aad iyo aad arooskii qarniga oo ay isugu yimaadeen gaal iyo islaam. aad iyo aad oo habeen dambe uu ka dhici doono Westland Pride Inn. waxay idin sheegeen asxaabta waxaa lidin dhahay arooskii qarniga dhici raba oo weligiis aroos intuu dhacay Nairobi ka dhicin. yaa dubay arooska, yaa jooga, yaa aroos mise yaa aroos gelaya. waa Sadaam Aadan Yuusuf wardo mooge khaliif. waa laba aan kala dhicin ma kala dhacayaan. asxaabta Mustaf waxaan kuu sheegay arooskan fanaaniin baa ooga imaadeen Yurub oo diyaarad iyo tigid soo goostay. habeen hore waa kaan airportka joognay, waa kaan fanaaniin badan aan soo dhaweynay. fanaaniin badan oo ka Nairobi noo joogaan. kuwii horena kuwii Nairobi noo joogaan. fanaanka u horeeya horta arooska kala kicin raba waa fanaanka taqaanteen Cabdirasaaq Alteso. waxaan halkan uga hambalyeynayaa ilmahayga aada u jeclahay waa Sadaam Aadan Yuusuf iyo warda mooge khaliif oo arooskooda ka dhici doono insha allah axadda Westland Pride insha allah waan isku arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo. waxaan idin leeyahay gurigiina guur kheyr qabo, gurigiina guri negay. hambalyo abti macaan. waxaan kaloo meesha ka maqleen suldaanka geeska Suldaan Seeraar iyo fanaan kale aad u taqaaniin oo aroosyada Nairobi de u shidan yihiin oo kala kiciya. waa ilyare. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan halkan hambalyo aroos ugu dirayaa warda mooge khaliif iyo saygeed qaaliga Sadaam Aadan Yuusuf oo ka dhici doona arooskooda dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda Nairobi, gaar ahaan hotelka Paradine. wow Paradine alteesan oo tigid soo goostay. waxaan leenahay gurigiin guur khayr, gurigiin guri nagay, guulow ka yeel. arooskaas waxaan dhihi lahayn mataan le fut haddii lacag dhaqaala u yari inaan hal xableed iska dhaba may dhaqaalaha badan yahay mataan idin kuga insha allah. Soomaali waa dhamaatay badiya, muslimiintu waa dhamaadeen badiya. waxba hala badiyo kiin qaalidu waa kana tankiya wiilkii oo dhahay magaca Soomaalisaan hees ugu qaaday xudhawaan ka daalay. hadda wuxuu bilaabay hooyo Roose iyo abayo maxay ahayd muxuu dhahay abayo Fatimina iyo hooyo Roose iyo maxaa la jiray lama kala harin Penina iyo Princilla iyo wuxuu dhaho kale wax uu sheegay. yaa kala meesha ku sugan oo aan ka maqnay isagana King Khalid fanaankii yaraa ee ka carabta. hambalyo waxaan halkan ugu hambalyeynayaa Sadaam Aadan Yuusuf iyo marwadiisa warda khaliif mooge. hambalyo mar labaad. thank you. aniga meesha ka maqnay waxaa kaloo meesha joogta fanaanka isna hadda laga daba dhacay waa fanaankeenii Khadar Keew. waxaa kaloo meesha jooga fanaankeenii baryahan la wareegay Islii iyo Nairobi la wareegay Maxamed Biibshe. waan kaca iyo maxaa kale wax kale waxaa kaloo meesha ka maqnayn macalinkii weynaa idin dhahayay intuu meesha ku xidha weerka subscribe idin dhahay waa King CK niga dhaysan CK. waxaa kaloo meesha ka maqnayn macalinkii isma dhaanto oo u taqaanteen Big Bro ama Fatale. waxaan kaloo meesha ka maqnayn gabadhii u labisay sida Ilhaan Cumar waa qreeyay. waxaa kaloo meesha ka maqnayn gabadha kaloo sanadada laga daba dhacay oo saa telefoonka u tuuraysa Baby Shacli. maasha allah. horta cawkow arooskan waa aroos weyn weligii Nairobi kama dhicin. wuxuuna arooskaas u dhacayaa Sadaam Aadan Yuusuf waa saaxiib aad igu qaali ah iyo marwadiisa oo la dhaho warda mooge khaliif. maasha allah. meeshaas waxaa ka dhici doona wax kaale araga
asxaabta waxaa idiin sheegaynaa si aad u noqoto qofka koowaad oo arooska daawanaya waa anagoo bahda Jila channel ha nagala bakhaylin subscribe ka dambana gambaleelka like share comment waxaad ku xidhan daqiiqad kasta Jila channel sida arooskaas weyn haddaadan goobta joogin aad si fiican uga daawato fanaaniinteeni waaweynaa iyo bulshadeeni Nairobi oo meeshaas isku arki doonto waa soo idiin sheegay saaxiibkii qaaliga Dalmar waxaan idiin sheegay anigana anagoo bahda Jila channel ah habeen dambe inta joogto way joogtaa intaan joogina ma joogto haddaad joogin habeen dambe anaga si toos ah arooska usoo tebin doona live idin usoo sideen doona waxaan leenahay si fiican u fiirsada marka daawataana lamaanaha commentiga si fiican ugu soo qora hambaliyada isan kala dhicin idinka ka daalina commentiga iyo maxaa la haye shay ka daalina idinka ka daalina barnaamijku waa gunti iyo gunaanadkii Mustafa waa ogsoonahay arooska aan dhihi karno waxaa jooga Sultan Seraar oo wadan kale ka imaaday Khadar Keyow oo wadan kale ka imaaday maxay jireen muxuu ninkii ahaa Alteso oo wadan kale ka imaaday oo adugay si weyn garoonka lagu soo dhaweynayo imaaday waxaa jooga CK waxaa jooga macallinkii Smadhaanto Big Bro ama soo taqaanteen Fatale Big Bro Baby Shani Iqliiri iyo fanaanadii la hoolin waayay oo magaceeda bariyahan meel uu aaday la garan laayay oo geeska Afrika qabsatay sida Sultan Seraar waa qaaliladan يا كلام مشكلة مقالين ده دقيقة هذا أفريقيا هذا أفريقيا waxaa kaloo meesha ka maqleen oo hadda telefoon lagu soo sheegay oo tira arooska uu joogo Alteso iyo Layere Bibshe iyo qaalan si aan uga maqnaan kara hadda si telefoon degdeg ay soo dhacay yaa waay waa macallinkii weynaa oo muusikada idoo tumi jiray Xasan Ujeeri Ajami war meesha lagu kala maqnaa meesha waa la isku arki Ujeeri wuxuu dhahay wax badan baartay anoo heesa soo qaraacayo amal iidla ama waqaaday ama iqriiri ama qaaliladan ama Bibshe ama macallinkii muxuu ahaa Yubezani wuxuu dhahay habeen dambe muusikadii oo live ah yaa farax u dhisaa kaga sii mudhaantumaya aniga kuma dhihin arooskaasi waa aroos soo gaaban waa aroos habeen dambe lagu daali doono waayo si isu kala bedelayo oo fanaaniinta hore mid u soo galaayo tii ani ma dhihi kari waxa ka cabsanaysaa saacad soo xilna daba maro biri ciyaartu waxay bilaabanaysaa ama goobta waxaa la tegayaa 12 galabnimo waxayna dhamaanaysaa 9 saac iyo barka subaxnimo markuu sheekha aadaanka mikrofoonka afka saaro ha ka daalin muusiga ani waxa ka cabsanaya in saacad soo inta la hilmaamo la daba maro oo saacad durul taagan yahay meesha la arko wuxuu dhahay saaxiibkii Dalmar salaad intii la ilaawo in duurka la isla arko aan dhihna bulshada dhan horta bal qiimay idinka commentiga noo soo qora arooska bilaaban doona 12 galabnimo xilma dhig karta mu dhamaan kara maadaama uu joogo fanaaniin caan ah ama fanaaniin geeyo Soomaalida qaali ku ah heesa wadinaha qadan heesa qadan jacayl heesa aroos qadan heesa daas qadan inkastoo uu joogo macallinkii Sultan Seraar oo bilaabay qisadii heesooyinka tartanka haddana qisadii soo gabagabeeyay maxaa isdhiibtin bulshooy fanaan kasta meeqa daqiiqo qaadan kara halkii heesa uu soo qaaday ama wadani ha haato ama jacayl ha haato ama laaf ha haato waxay rabtaa haatee hadduu hal mar soo galo meeqa heesoo mid kasta qaadan kara oo fanaaniin waaweyn ma waxa soo kacaya Dalmar saaxiib wuxuu dhahay Cabdirasaaq haday taman aan horeystay aniga wuxuu dhahay habeen dambe qaybtii xamiriga wuxuu dhahay meel baa saaraya maadaama hadday meesha ay goobta ku sugan tahay iqrayeri oo macallinkeeda markuu hasan macallimidiisii ahayd waxa kaloo goobta ka maqneen laka xaji wacays waxa kaloo meesha ka maqneen Faadumiina Cabdirasaaq Alteso taqantan hadda gal waxaan meesha ka maqneen oo kale qor waxaan meesha ka maqneen ama qor laki xaji wacays ama qor Faadumiina ala arki doona Alteso wuxuu sameeyo waxaa kaloo meesha ka maqneen qaaliladan Maxamed Bibshe King Khali hodan Afrika meesha waxaan ku leeyahay looma kala harin habeen dambe un indhaha baa ku daali laydku iyo ku dhimanaaday King Khali wuxuu dhahay habeen dambe wuxuu dhahay fari kama qodno waa wiilkii dhii jiray aqligi Allah ilmi miya lahayn abdiyo ninku caashaqay miya la culoway soo ku yeelay عالمتي صحيح عوك والله يسامح كل حاجة هبين ضمبي دقيها ونعد بسوق شادي دقيها يقرح هنا سوق شو عدبي عفي يوسف سوق شابو عفي أبو عدبي سوق شابو سوق الشيء هو غرح يك وقرح من دقيها هذا لا يفضل وانا سنة ترتيبته كفوا محاكا نلان كرا محاكا صبيح كرا ميشو تشو إلا يري بيبشي سلطان سيرار قال يوبيزاني خاركيو عبد الرزاق التيسو وحسن عجيري عجيب وساليه دي جي انو يahay ninka la jiray muxuu ahaa Aflanta sabta qalteen Abdi Jabbar meesha ma ka dhalan kara maxana ka soo bixi kara awgu hal su'aal aan ku weydiiyo
fanaaniinta waa maasha Allah horta waa imaanayaan mid kastaba hawshana si talantaaliya u wadayaan bal aniga adiga arooska wardiyo iyo Sadam maxaa u rajaynaynaa adi ahaanta cawkiba anigu waxaan leeyahay labadii isku waato oo khayr qaba kala hela arooskooda u noqdaa way naga baraadhe badho anageen le aroos la isku soo baxay anigana waxaan dhihi lahaa Sadam iyo wada arooskooda waa kii noqon lahaa Soomaali in isu keena maadaama fanaaniintii dhameed oo hadii horta laakiin Soomaali gaal iyo muslim horta qofna lama kala harayaan ku dhahay lama kala harayaan soo dadeen Soomaalidii kostigi waxaa maqan qolkii baa loo laayay meel kala qaada la ayaan ku dhahay dad wax ka daawan rabaan baa la banaanka project lagu dhigi raba oo project arooska la socon rabaan alla ifada ku arkay dooninba taaka ibo haye mid kale ku haya haye ilaa su'aal way weydiisay hoolkii maadaama ka dhacay arooska Nairobi gaar ahaan Westland ka sigaar ahaan Pride oo dhika intaas qof aan boqolaal ama kuman buqada biyaha hotelka waxaan maqlay saasa loo raadinayaan ku dhaleen baa loogu jiray maadaama uu yahay hotel qaadi kara ninkii marka hadii isaga awooda inuu keensado Soomaali Maxamed ee Nairobi ku sugay wixii dibad ka imaanaya inuu soo keeno isku arkaan iyo gaaladii oo ka maqnayn ha ninkii keenin kara waa ilkaas asxaabta caaw waxaan dhahnay wax badan baan nooga dabatay barnaamijyo fara badan aan soo weelin jirnay weli idinka meel ilaawin inta yareed ku haysteen jeclaan daysan mar walba noo dheh waan ka codsanay cawkow waa sayid sheeg dameer qorfiyalka dameer qorfiyal maxay gaar geel muxuu inay kulka gaar kashita maxay jabin kar qorata maxay muusika gaar waxaan ujeeda ajeema waxba cawkow aniga jira janal ugu yaraan 2 bilood baan ku tala jiray inaan habeen soo hor fadhiisto oo wixii aan ka dhigay naftayda aan ka sheego meeshaas caawa ay ii hergashay maxaa suuqay keenay arooskii wax isku soo haagay iyo jaraajinal oo meesha ku jira asxaabta aniga duway taqaantanin iska maskiin ah oo iska qalbi furan wax ma qari xalina alteso idin sheeg wuxuu dhahay ninka macalinka channelka wuxuuna waa nin noocaas ah iidana idin sheegay haddana waxaan qaranay ninka garab fadhiya Soomaaliland wuu cazumay cazumka soo ninka waa min xeeskii wiilka arooska geliyay waa idinku shay waa idinku qarxin wuxuu dhaday tahay shay laakiin hadda ma kaamera soo farsanay waan ku qarxiyay dacwka waxa leysay live fashion baa hayne interactive habeen dambe live laga dawada rabay oo meel soo dhax galo iyadoo la ogeynba laakiin caawa uu nidhi waa si galayba waa ka min xeeskii hadda Nairobi ku sugan tahay soo qor comment magacaada iyo telephone numberkaada invitation meesha joogta lagu keenaya invitation kuma kala haray caawa saa buu isku saareen telephone number joogto iyo kugu imanay invitation kaada baabuur shidaal ma laha waxa ma jirto anaga naqaan wuxuu sameyn maadaama dadka dhaadeen arooska qaniga dhacay fanaaniinta duugu isku keenteen caawna jilaatin ku casubanday dad hadda waxa la sheegay 1200 ama 2200 dhahno ku dhawaad kisa aan ognahay social media in invitation kaarka ay heleen lagu galay meesha dad waxa jiraan wali qaadanin arooska fanaaniinta badan imanayaan qalbiga ku hay inay tagaan way farxadda iyo muusiga iyo hawlaha la qaybsadaan dadka maxay u sheegaysaa xagee loo aniga waxaan u sheegayaa asxaabta ku xiran channel ku xiran in aysan hilmaamin telefoonkooda gacanta ee laga heli karo mar walba iyo goobta ay ku sugan yihiin iyo magacooda saddexan ay soo raaciyaan oo ay soo dhigaan channel commentigiisa kaas ayaa meesha ay joogaan lagu geynaya kaararka invitationka ay kaga soo qaybgalayaan arooska weyn ee qarniga dhacaya haddaba hadaahina marka ugu horeyso oo muuqaalkayga aragtaan waxaa la idinka rabaa sidii aad uga soo qaybgeli lahayd arrintaas oo nin kasta meesha uu joogay iyo meesha ku sugan yahay telefoonkiisa uu soo dhigi lahaa meeshaas hala sala kaco qof walbana filaaskiisa ciyaara waa saa idin sheegay arooskii qarniga waana guntii iyo gunaanadkii barnaamijka waxaan kala ku darsanayaa cawke waxaa laga yaabaa in commentigiina laydinkala ka hormaro oo aanu ku arki weyno oo dib kaa aragno taana waan kaa raali gelinaa wara inaba caadi maskaxda waxaa lahay qofka u dhalasho weeyaan laakiin iska keen ma aha waa saa idin sheegay laskama dhiga sida camal oo ka cirka soo dhaco kul dhug ee wixii jira la hubsaa xaqiiqdi haddii meel laga dhintay miska soo ino heeyo dhintay hadii horta xagee laga dhintay qofku magaal baa muslim baa waxa ka dhintay baa laga dhintay علم جرت وين السؤال شو تسوي أنا سؤال اللي سويديو وحيد النهاي كومنتياش اللي كانوا هورين كلام حدنا وقدال كعرقنا وأنا اللي قلنا نقول عوكو أنا أرتو حاسك جعل هايو مرة بينا كوسوقنا هذا قوم أديك أو كوسوقنا تاعي الكاميرامان كانوا ويناء عبدون الضوء بيقبلون مش وكم غنين مركز سواس كجعله لكن دوي الدنيا اسكا أهو المركز اللي اسمه لا ينيو وأرنت أصحابته أدي أدو حنقوم هذا صاحبك خالي همرنا كاميرامان كي قعنت معان عبدولي أم صوت قندن واس عرب يسير كل حسلام يا بحث مدامته عبد كافي بيبي شعني أبو أنجيسي ينقل لجي بيكبرو وحنا كل كمرين
دانا هذا دولة فريق عروسك ما دام من حس وياي ونيلا من حس أو عروسك هذا كنا عروس ويعني قفهم هو يجفنا محاوي كم قوي يقعد يبت جفنا هادو جفني مقيم محمد سو كوريا جفني إني كان نقونية مرك هذا وعلى فريق عروس مرنا من حس هبين دمنا وحلا يفرق دهن يسوع مع عيارية أم يسوع بودبودية أم يسوع برهم برايا أم يسوع قبية عوكو أنا ماشي ضد أوفر الشيء لكن ده واحد كده كلام جريم بقى واي بعد ما دي عوكو وحلا بقى أو مرة رئيسي جريه وماشي إنه يعني ماشي على الشيء ده وقته تعالى يوصل على الشيء لكن ما دي خالص أصحابته وسائل شيء إحنا يلا بخير سبسكرايب كم بالك لايك شير كومنت وحندين شيء ناقله channelka subscribe dah way ku fiican tahay noqod daawadaha koowaad habeen dambana arooska live fan idinku sutubina qaybta koowaad ilaa qaybta u dambaysa ama UK joog ama Washington joog ama Europe joog ama Nairobi joog ama Palambala joog ama Dadaab joog ama Daarta joog Bahawsweyn iyo Banana iyo Bura